بسم الله والصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم kusoo dhawaada barnaamijkayga shir jaraa'id oo aniga mukhtaara oo idinka salaamaya meeshan maanta qiso cusub adii haya iyo sheeko cusub marka insha allah sheekada waxaad ku bilaabaya waxaa jiray beri nin deganaan jiray daa'ifna waxa weeye maka ay ka xigta xagga galbeedka oo muddo u jirta marka ninba sultaanka ahaa sultaan aad iyo aad weyn buu ahaa nincaanu ahaa oday buu ka ahaa qabiilkiisa iyo reerkiisa oo dhan isku reer baa deganaa meesha daa'if markaa reer daa'if baa la odhan jiray berigaa waxaa la odhan jiray xijaaz ayaa la odhan jiray eryadaas oo dhan maka ilaa daa'if iyo intaasoo isku jirta xijaaz baa lagu yeedhi jiray markaa magacooda marka ninkan gabadh buu aad u jeclaaday gabadhu aad iyo aad buu jeclaa marka gabadhii muddo ka bacdi waa lagu daray wuu calfay ilaahay baa u qoray markaa gabadhii uu guursaday oo jacayl bay isku guursadeen mudday isqabeen oo dee carruur baa u dhashay oo nabad iyo caafimaad bay ku noolaayeen marka habeenada ka mid ah ayuu ninkii xabad ku soo noqday aqalkii berigaa waxay degnaan jireen buul bay degnaan jireen mise khiimad mise tent baa la odhan jiray bay degnaan jireen marka markuu soo galay wuxuu arkay gabadhii oo rafanaysa iyo mas meesha aqalka ku jira marka maskiiba ku booday oo u dilay markuu maskii dilay buu gabadhii u soo jeestay gabadhii buu arkay naftii kasii baxayso aad buu u murugooday iyo naxdin iyo dee aad iyo aad buu uga murugooday arrinkaas marka gabadhii naftii baa ka baxday markaasuu yidhi waa ilaa subaxdii baa la sugay subaxdii buu dadkii isku soo shiriyey gabadhii waa la aasay markii la aasay buu tuu qabsaday buu dadka u sheegay u teliyey ku yidhi dagaal ayaan bilaabaynaayo masaska buuraha ku jira oo dhan waa soo laynayna idabqallo iyo waxaa buurta ku nool oo dhan waa soo wada laynayna dagaal baa uu iclaamiyey markaa buurihii baa la wada fuulay dadkii o dhan baa wada buuraha fuulay oo dagaal bay meesha ka bilaabeen oo mas walba arkaan dabqallooc walba arkaan waxa buurta ku nool oo dhan way dilayeen oo mid kama soo reebeen markaa kollayba ayagana dhaawac u soo gaadhay dad baa ku dhintay maskii oo qaniinay dabqallooc qaniinay markaa dagaal leexaad leh buu ahaayo kow baa la iska siinayay markaa muddo markay socotay dee dagaalkiina wadayeen markii dambe maka ayaa nin baa ka soo baxay xagga bari buurta maka ka soo degay oday dheer buu ahaa oo gadh cad timo cad cimaamad cad maryo cad wada xidhan ayaa soo degay markaa quraysh oo dhan buu u yeedhay suuqadii soo istaagay buu yidhi madaxdii qurayshay soo baxa markaa madaxdii quraysh oo dhan baa yimi meeshii dadkii o dhan baa lasku yeedhay markay yimaadeen buu yidhahdeen maxaa jira odayoo maxaad nagu yeedhay markaasuu yidhi waxaad ku yeedhaya maanta annaga ee daa'if dagaal baa naga dhexeeya dagaalka waxaan doonayna inaan joojinno oo inaan xeer dhiganno heshiis aan galno markaa dad badan bay naga laayeen annaguna dad waa ka dilnay marka waxaan doonayna inaan heshiis aan galno marka waxaa la yidhi waayahay soo fadhiiso shaahiyo waxbaa loo keenay markaa uu fadhiistay meeshii waxba muu cabbeen uu iska fadhiyey meeshii marka waxaa loo yeedhay reer daa'if baa loo diray nin baa loo diray waxaa la yidhi noogu yeedh suldaankii reer daa'if marka waa loo tegay oo waa la keenay markuu soo fadhiistay meeshii waa la weydiiyey ninka wuxuu yidhi maxaad ugu yeedheen reer quraysh baa u sheegay waxaa la yidhi waxaa lagugu yeedhay odaygan baa noo yimi wuxuu yidhi waxaan doonaynaa heshiiska la saxeexano annaka iyo reer daa'if oo aan heshiinno dagaal baa naga dhexeeya markaa dagaalka mad hogtahay ninka uu yahbay wuxuu yidhi dagaal cidna nagama dhexaysee ninkanu waa maxay markaa ninkii baa hadlay wuxuu yidhi buurihii waa idinka fuulay dad badan baa naga disheen marka waxaan doonaynaa heshiinno oo heshiis galno iyo xeer aan kala dhiganno markaasaa lagu yidhi waa yahay xeerka waa kala dhiganaynaa markaa ninkii baa la weydiiyey ninkii baa yidhi dee anigu ma yeelayo gabadhii adduunka ugu jeclaa ee carruurteeda dhashay ayaa layga dilay marka anugu dagaalka waa sii wadaya markaa quraysh baa soo gashay waxay yidhaaheen waa heshiiskaa fiican heshiis inaad gashaan baa fiican dagaalka inuu sii socdo iyo dad badan ku dhintaan meesha ma doonayno markaa heshiiya markii dee lala hadlay dhinac walba laga yimi markii dambe wuxuu yidhi waayo waa heshiinaynaa heshiiskana waa xeer xaggeenna waxaa la yidhi booraha cidna kaama soo weerarayso nabad baad ku joogaysaan masad qaniinaya dabqallooc waxay dii imanaya ma jiraan marka heshiiskii meeshii waa lagu saxeexay reer qurayshiyo ayaa shaambadooda ku dhuftay markaa waa la wada heshiiyey sidii baa lagu kala tegay ninkii ku soo noqday reerkiisiibu ku soo noqday markaa dadkii buu isu sheeriyey weli buuraha ka soo dega heshiis baa kala saxeexnay
marka dib dambe buuraha xaggeeda lagama soo weerarayo haddaan laga soo weerarana dagaalkii baa dib dambe ugu noqonayna marka way ka soo wada degeen heshiiskii baa meesha ku socday marka dhowr sannadood baa socday odaygii uu dhintay reer daa'if marka inankiisii baa dhaxalkii sugihii ahaayo isagaa qabsaday meesha markaas wuxuu noqday suldaankii qabiilkii reerkaas marka nabad baa lagu nooladaasna gabadh buu jeclaaday gabadhii buu guursaday carruur bay u dhashay nabad bay ku noolaayeen nabad markay ku noolaayeen muddo muxuu soo galay gabadhiisii oo dee dhacaysoo suuxaysa oo sarac ku dhacay oo kale marka reerkii buu isku yeedhay meeshii baa lasoo wada istaagay marka ninkii uu soo xasuustay sheekadii aabihii ku dhacday markaasuu gabay tiriyey gabagu tiriyeyna wuxuu ahaa qolayahay buuraha degan waad ogtihiin wixii naga dhexeeyey heshiiskii naga dhexeeyey maantana haddaad soo noqotaan annaguna waan soo noqonaynayo buuraha wada fuulaynayo dagaalkii xaggii buu ka bilaabmi doonaa in yar ka bacdi waxaa la arkay gabadhiisii xaaskiisii soo kacday oo soo fadhiisatay oo bad qabta oo waxba haynin marka gabadhii marka soo matay dadkii farxaddii bay ku soo noqdeen marka xikmad baa ku jirta qisadan xikmaddana wax ku jirta maad garanaysaa reerkan badowda ah reer miyiga ah ee cilmi lahayn ee diintii haysan ayaa iska celiyey oo gacmahoodii ula tegey oo iska celiyey oo waxba ka baqin marka waad aragteen qisadan xikmad baa ku jirta xikmadda ku jirtana waxaa weeye annagu maaha inaan ka baqno awood ma laha annaga ka awood badan ilaahay baa dunidan awoodna siiyey waxaa bani aadamka lagu aaminay adduunkan oo la yidhi idinkaa ka mas-uul ah oo cid walba ah oo arrimahan oo dhan ka mas-uula marka xikmadda ku jirta bay ahayd marka berina waxaa jirtay gabadhana waxay ahayd gabadh soomaaliya ku nool meesha kaga nooshay anigu ma ogi bas qisadeeda koley waa maqlay gabadhan waxaa la yidhi marka qur-aan lagu akhriyay buu qaylin jirtay way cabaadi jirtay oo dee way suuxi jirtay marka wadaado badan baa loo geeyey hargeysaa la tegey jabuuti baa la tegey garawaa la tegey gaalkacyaa la tegey maqdishaa la tegey kismaayaa la tegey meel walba waa la tegey wadaad walba loo tegey marka wadaad walba qur-aan ku akhriyo uu daweyn kari waaye marka waxay maqleen sheekh weyn oo caalimaad joogi jiray yaman oo dadka ka daweeya marka waa loo geeyey markii loo geeyey ninkii sheekha loo yimi sheekhii baa weydiiyey oo yidhi maxaa dhacay gabadhan maxaa haya marka waa loo sheegay waxaa lagu yidhi inanteenu way suuxdaa marka qur-aan lagu akhriyaba oo way qaylisaa markaa sheekhu noo dawee oo ajar lacagna ku siinayna markaa sheekhii baa yidhi waayahay gabadhii keena gabadhii baa la qabtay qur-aankii buu ku akhriyey marka qur-aan kuma akhrino wax buu akhriyey marka way qaylisay oo aad iyo aad buu qaylinaysay markaa sheekhii baa yidhi gabadhan kaxeeya gabadhan waxa haya jin maaha waa wax kale markaasaa reerkeedii baa ku xanaaqay oo la dagaalamay gaadhay markaasay ku yidhaaheen waayo waad iga arkay qur-aanka markuu akhrisay inay gabadhii qaylisaye maxaa gabadha ku dhacay marka sheekhii baa u sheegay wuxuu yidhi anigu qur'aanba kuma akhrinba gabay carabiyaan akhriyey marka gabayga carabiga ayay ku qaylisay marka jin maaha waxa haya maskaxdeeda weeye ayadaa waxaan aaminsan marka waxaasay u qaylinaysaa marka orodoo kaxeeya oo daweeya maaha waxa haya waa jin maahe marka reerkii way iska yimaadeen gabadhii muddo ka bacdi way bogsatay sheeko kalena way jirtaa nin baa joogi jiray jarmalka magaciisa kolleyba ma sheegayo marka ninka jarmal joogay wuxuu odhan jiray mas baa calooshaygaga jira oo dadkii o dhan buu u sheegi jiray marka dadka looga la yaabi jiray oo ku qosli jireen oo reerkiisii dadkiisii baa kaxeeyey waxay jiraa meel walba geeya dhakhtar wadaad cid walba loo geeyey markii ugu dambeysay dhakhtar jarmal aa yidhi aniga ii keena marka ninkii dhakhtarka jarmalka uu suuxiyey markuu suuxiyey mindi yar buu soo qaaday oo calooshiisii ku saray oo ka dhigay inaa la qalay oo kale mas buu keenay baaldi buu ku riday markaasuu ninkii suuxitaankii markuu kacay buu ku yidhi waa lagu qalay maskiinoo lagaa soo saaray calooshaadana eeg calooshii buu eegaynayay tulan tahay oo kale ninkaa maskiina uu arkay markaa uu rumaystay ninkii u kacay wuxuu yidhi waad aragteen waxa idiin sheegaya dhan waa run mas baa caloosheeda ku jiray sidii buu bogsaday ninkii uu guursaday carruur buu dhalay reer buu leeyahay haddana marka isaga aaminayna waxaana ku jiraan kumay jirin oo dee caqligiisa ka dhaadhiciyey inay waxaanu jiraan marka waxaa leeyahay dad badan baa jira waxaan ku nool oo aaminsan inay wax ku jiraan ayaga waxba ku jirin marka xikmad ina laga qaato weeye dad badan baa jira adduunkan wax iska dhaadhiciyey oo rumaystay marka insha allah xikmaddaasaan ka qaadanno marka waxaad ku leeyahay anigoo mukhtaar shir jaraa'id ah
waxaad ku leeyahay insha allah kulanti dambe aad iyo aad bay mahadsan yihiin dadka sheekay subscribe ku sameeyey insha allah sheekada dadka hesheenna thumbs up iyo comment iyo subscribe sameeya insha allah aad iyo aad bay mahadsantihiin kulanti dambe isha jiraay dambe khayr bas ku tahay maca salaama